waa qiso la yaab leh oo laga soo warinayay waddanka Brazil ee ku yaala qaaradda Latin America. Wargeyska Daily Mirror ee ka soo baxa cariga Ingiriiska oo arrinkan ninkan wax ka qoray wuxuu ku bilaabayaa sidan. Fabio Beraldo oo loo yaqaano Fabilinho waxa uu jira 47 sannadood. Waqtigan waa nin sabool ah oo aan $1 haysan, ahna nin dibadgal ah oo aan hoy u seexda lahayn, homeless. Inkastuu sidan yahay, haddana waxaa la wariyay inuu ahaan jiray nin maalqabeen ah, balse muddo hore ayaa uu kacay oo maanta mood iyo nool toona u dareerin. Ninkan odayga ah waxa hoy u ah oo seexda meel qabri ah oo ay lafo aadami ku aasan yihiin. Wuxuu is ag dhigay oo habeenkii iyo maalintiiba garab jiifa lafa bani aadam oo ka soo hadhay meydkan inay saaxiibo ahayn jireen, isaga oo arrintaas ugala jeeda inuu uu heshanayo ama uu walaal ka dhiganayo oo adduunka ka eegto. Tan iyo maalintii uu lacag beelay ee uu sacabada dhulka saaray waxa uu noqday nin daroogadu dishootay oo aan wax nolol haysan. Wargeyska Daily Mirror ee waddanka Ingiriiska ka soo baxa ayaa arrinka ninkan wax ka qoray, waxaana uu ka sheekeeyey sida ay u dhacday inuu lafaha saaxiibkii wehel ahaan u haysto muddo ku siman haatan 13 sannadood. Wargeyska oo arrinta ka hadlaya wuxuu yidhi Fabio Beraldo wuxuu muddo sannad kadib markii uu lacag beelay uu maalmaha ka mid ah isaga oo daroogaysan toos u abaaray nin ay saaxiib ahaan jireen oo geeriyooday qabrigiisii. Inta uu qabrigii faqay ayuu lafihii saaxiibkii isku habeeyey oo uu isku ururiyey, kadibna sidaa uu hoy kaga dhigtay godkii qabriga ahaa, isaga oo lafihiisii garab seexda wehelna ka dhigta. Fabio oo wax laga weydiiyey inuu jecel yahay inuu mar kale noloshiisa caadiga ahayd ku soo noqdo oo uu qabriga isaga soo baxo ayaa yidhi ma doonayo adduunyadan xumaanta badan. Waxa aan wax walba ka jecelahay inaan keli ku noolaado. Marka aan cunto yar dadka soo baryo waxa aan dib ugu soo noqdaa qabrigii aan samaystay ee lafaha saaxiibkay wehelkii iyaga ahaa. Intaas ayaan adduunka ka eeganayaa, mana doonayo inaan dadka u soo dhowaado ayaa uu yidhaahdaa. Haddii ay dawladdu hoy iyo nolol isiiso waxaan u noolaan lahaa sida dadka caadiga ah. Qisada ninkan ayaa ka dhacday deegaan ka agdhow magaalada San Jose ee bartamaha Brazil. Xaaladdan ayaa dalkaasi aad uga yaabisay.